hoteelkan casriga ah ee loogu magac daray Medina Asian Food ayaa waxa laga daahfuray bartamaha magaalada Burco waxaana xadhiga ka jaray barsaab ku-xigeenka gobolka Togdheer Maxamed Diiriye Xayd. Hoteelkani Medina Asian Food oo noociisu ku cusub yahay magaalada Burco ayaa waxa ugu horeynba ka warbixiyay maamulaha hoteelkaasi Yaasiin Jaamac Indhadeero iyo mid ka mid ah howlwadeennada hoteelkaasi oo u dhashay qaaradda Aasiya. waxaan halkan ka furaynaa qaybta cusub ee ay hirgelisay Daara Hotel qaybtaas oo la yiraahdo Medina Asian oo ka kooban cuntooyin kala nooc ah oo aan waxa weeye ugu talagalay macaamiishayada hoteelka waxa weeye iyo gobolkaba dhammaan markii aan macaamiishayada ay naga codsatay in aan waxa weeye ay dalbadaan cuntooyin kala nooc ah ayaan waxa weeye u sameynay qaybtan cusub ee ugu magac daray Medina Asian. I welcome you to Medina Asian Medina restaurant. Ahlan marhaba. And I would like to say my thank you to our big boss, Mr. Maulid Dero. May Allah preserve him. And I also would like to say my thank you to Sheikh Dr. Hassan ibn Sheikh Ali Warsama hafidhahullah ta'ala. Maxamed Diiriye Xayd xogayaha dawladda hoose Cismaan Maxamed Sheikh Cismaan Nuur qaar ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka Dr. Xasan Sheikh Ali Warsame iyo mas'uuliyiin kale oo ka qayb gashay furitaanka hoteelkan casriga ah ee Medina Asian Food ayaa hambalyo iyo duco u diray mulkiilaha maalgashaday hoteelkan caalamiga ah ee ku soo kordhay magaalada Burco isla markaana tilmaamay inuu wax badan ka bedeli doono ganacsiga magaalada Burco. ku faraxsanahay haddaan nahay maamulkii gobolka iyo degmadaba oo xildhibaanadii golaha deegaanka iyo xogayihii degmaduba ay la joogaan iminka barbarkayga taagan yihiin waxaanu soo dhaweynaynaa Mawlid Xaaji Cabdi Cawad bogcadan barakaysan oo inoo furay ee maanta aynu mataqaanaa xadhiga ka jarayno aad iyo aad baanu soo dhaweynaynaa. runtii hoteelkan Medina Asian Food ee Mawlid Xaaji Cabdi uu odayga ka yahay aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa. waa eewanba ku yaala hoteelkani bogcada aad u qaaliyo ku yaala hoteelkan cusub ee magaalada ku cusub magaciisa la yiraahdo Medina Food kiilaha Mawlid waxaan leenahay Ilaahay ku barakeeyo barakallahu fiika baan leenahay horumar inuu soo kordhiyo Allah subhanahu wa ta'ala ha barakeeyo waxa weeye mashruuc hirgalana oo najaxana Allah subhanahu wa ta'ala ka dhigo. Maxamed Jookar warbaahinta caalamiga Ariel TV Burco.